السلام عليكم waxaa ku soo raatay YouTube channel-kayga magacayga waa Fnaan Aadan waxaa la soo noqday video cusub hadii aad channel-kan ku cusub tahay welcome hayga iloomin subscribe-ka hadii aad ka mid tahay daawadayaasheeda hore then welcome back arin asiga qaas u ahayd sir asiga qaas u ahayd mase qalad oo asiga hadda ka horgeystay sababta iigu sheegaya waxyaalaha ka mid ahaa inuu aniga kalsooni buuxo inuu aniga dhinacayga ka helo soo sirta ii sheegaya waxay dhaafnaan hadda ka hor qalad aan geysto dhahay qaladkaas oo geystay waxay ahayd dagaal aan galay sabir intu saayay sabarkii wixiisa dhan ilaa ninkan tactiga ku socda plan ku socda wixii dhan uu soo plan gareeyay sabir intu saayay waxay tusay inta ku soo sabiri doona sabirka laakiin wajiyaashooda waa qarin doona because inuu aniga dhibaato iga soo gaari karto so basically sabirkan ay tusay waxay dhahay hadda ka hor wiilkan waa wiil saaxiiban ahanay waxa ahaan jirna saaxiibo best friend isku dhow maalin dagaal oo galay wiilal kaleeto soo dileen way isku qabteen kaligiisa dagaal oo galay dhakhtarka la keenay wuxuu galay koomo wuxuu dhahay waxay ka jireen waxay ka qaleen oo dhahay dhagtiisa dhan ay ka gooyeen soo aniga markaa maqlay iyo saaxiibayaasheena aad u xanaaqnay wiilkan saaxiibkeen ahaa inuu dad kale soo dileen sida xan u galeen soo waabaxnay waxa sameynay wiilashii ka soo aargoosanay dagaal galnay wiilashaas markaan dileynay dhaawacyo weyn u geysanay sababtaas u sameynay is because aniga waxa ka xanuunsaday ka danqaday saaxiibkayga oo sida loo soo galay weyn dhibaysay controlka ay lumay taas waa aaminsanay inaan qalad gala tahay laakiin wuxuu dhahay mar hore ahayd booliiska way qabto dhahay booliiska marka la qabtay waa la soo sii daayay because wax oo maxaa la jira cadaan leeguma helin anigana waxaa rabaa inaan ku sheego because aniga ma rabi adiga dhexdeena wax sir ina dhaxtaala marabi waa ka qarini karay maadaama la soo qabtay yani waxaan dhan mar hore ahayd soo dhacday haddana cadeen liigu waayay laakiin marabi ina ka qariyo because aniga waxaa rabaa mar kasto ina igu kalsoon tahay so basically waxyaalahan sameynayaan maskaxdiga dhaqooyin literally maskaxdiga dhaqooyin so aniga wax weyn meelo noqon dhinacayga qofkan waa ka helay qofkan wanaagiisa farada badan arkay qofkan waxa arkay dhinacyashiisa caadi ahaan waxa la qofka marka aroosaysid fiiri sidoo familigiisa u yahay because familigiisa haduu u wanaagsan yahay adina uu ku wanaagsanaana qofkan wuxuu ahaa qof aad iyo khatar u hooyadiis u duceysay hooyadiis baarigiisa ahaa walaalihiis oo dhan jeclaay haddana markaas la sheekeysan jirnay markasta wixii soo wici jiray markasta waxa la kulmi jiray soo dhahayo hooya inta u wada hooya inta ka keenaa hooya u soo adeega walaasheeda inta ka keenaa walaashay inta u wada yani wuxuu tusayay sabir qurux badan familigiis inuu aad iyo aad u jecel yahay familigiisana inay number 1 u yihiin no matter what happened to him no matter what he's going through markasta familigiisa number 1 sabirkaas marka arkayay ani waxa ku fikiri jiray qofkan haduu familigiisan u jecel yahay sidoo aniga ii jeclaani doona sidoo u jeclaani doona ilmaha aniga dhali doono you know and because of that wax aniga wax dhahay okay waxan way iga horeeyeen yani waxay ahayd aniga waxa ninkan bartay 2015 dhamaadkiisa soo sanad iyo almost 2 sano ka hor oo dhibaatadan soo sameeyay qalad soo galay dad soo dilay but because ay ka gardarnaayeen because saaxiibkiisa dilan you know and aniga wax weyn ilma ahaan and somehow wacfiyay and haddana waa farxay waxa ku farxay sida quruxda badan oo ii respect gareeyay runtan ii sheegay kalsoonideedana waa helay so basically taas so waxa aniga maanta ii muhiimsan inuu itusayo qofka inuu qof fiican yahay qof wanaagsan inuu yahay qof kastana mar qalad wuu gali karaa qaladku galay waxa dareemaya that time saaxiibkiisa u hiilinayay ma ogeey dhibaato oo asiga geystay ma jirin marka qof yar tahay aniga marka ninkan baranayay aad u yaraa 18 sano jiray aqli kugu filan ma haysatid khibrad kugu filan ma haysatid manatid qof markasta ka fikiraya long run yani future ka dheer maxaa dhici doona maxaa kala kulmi doona adiga waxa tahay qof meeshan taagan maanta waxa arkaysid waxa lagu tusaayo li u jeeda anigana sidaas ahaay waxa dooranaya ina aniga asiga aamino hadaladiisa waxa dooranaya ina aamino ficilkiisa tusaayo waxa dooranaya ina aamino wanaagiisa farada badan waxaana aaminsanaya qofkan inuu yahay qof daacad maadaama ii sheegayo sirtiisa si u qarsoon badan aniga ma ogeen
inuu qofkan maaragtay already maskaxdeeda iga dhaqooyo waxyaalahan dhan uu sameynooyana inay tahay wax inuu sidoo ku helo qalbigayga iyo kalsoonideyda waqtigaas wax kastoo sameynaya he was being successful wuu ku guuleysanayay tactikiisana markasto sida u dhigay plankiisa sida u watay ee wax kasta u dhacayeen so basically markuu noqday ka bacdi bilooyin ka bacdi 4 bil ka bacdi waxa sheekadeed waxa ku sheegay inay wax dhacday waxaan dhacay darteedana guurka dhan inuu u baabay oo macquul gal noqoni waayay waxyaalaha maanta lagu haysto waxyaalahaas ka mid ah mise su'aalayaasha la soo weydiiyo su'aalayaasha ka mid ah so basically marka oo asiga waxaan dhacayay hore u sheegeen waa markaas waxa isnaqaanay 7 bil markaa wada sheekeysanayna anay asiga oo jaceelkan iga qorxinayay oo maskaxdeyda iga dhaqayay oo wanaagiisa farada badan i tusayay aniga I fall for all of that wiilkan aad iyo aad uga helay asiga ka hor wiligay ma dhihi kari wiil ma la sheekeysanin wiil ma shaqaansanin laakiin wiligayga wiil ma jeclaanin soo asiga wuxuu noqday jaceelkayga koowaad soo marka aniga ninkan jeclaaday oo ka helay faraxsanaan guurkiis ku diyaarinayay waxaan dhacay wixii oo dhacay hore u sheegay laakiin aqriye dhahay waxaana dhacay maanta ma sheegayay laakiin wuxuu ahaa guurka istaajiyay maantana waxyaalo fara badan soo baxeen social media la wareejinayo su'aalo fara badan aan la weydiinayo la dhahoya ninkaas xabsi galay afnaanna waxay sugeysay xabsiga inta ku jiray wuxuuna xabsi ku galay inuu xoogay gabar yar oo 14 sano jirta so basically sheekada si u socotay si kala tamaanto socoto soo guurkayga dhan iyo qofkan aniga baranayay weligay ima baranin qofka shakhsigu asiga yahay ima tusin wajigiisa saxda ah maadaama wajigan markasta qariyo anigana ma ahayn qof og qofkan saxda ay waxyaalaha ka dambeeyo so basically marka uu guurka dhamaanayay familigiisa soo waceen ii sheegeen wiilkii waa la xiray wax lagu xirana ilaa hadda ma naqaano so basically waxa qarinaya waxay ahayd in la xiro asiga so basically qofka kood marka la xirayo Sweden waxaa la geliyaa hectare intuu xiran yahay hectare meeshaas intuu joogo qof la sheekeysan karaa qof oo wici karaa qof oo la hadli karaa ma jirto because baaritaan ku socoto ilaa laga xaqiijinayo dambiga lagu haysto inay sax tahay mise inay qalad tahay so basically waqtigaas familigiisa xataa ma ogeen anigana ma ogeen saddex isbuuc ka bacdi waa ogaaday way soo wacay markuu ay soo wacay wuxuu yidhaafnaan ma xasuusataa hadda ka hor waxa ku sheegi jiray ku dhigi jiray dagaalkii galay wuxuu dagaalkaas dib loo soo celiyay feelkaas dib loo soo furay kaas hadda leeyahay haystaa sababta leeyahay haystana waxa waa because wiilka kale markii dileen in caadi ahaan I don't know wadan kasta u malayn inay waxaan ka jira laakiin maadaama Sweden soo koray Sweden qofka marka la dilo qofka marka la xanuujiyo mag la siiyaa hada qofkan la qabtay xiro lagu cadeeyo in qofkan la dilay lacag la siiyaa oo awaal marin yani waxyaalaha wax dhaawac loo geystay oo siinayo so basically waxa uu ku dhahay wiilka la dilay saaxiibkiisa ahay magta soo helay laakiin wiilashii kale ayaga soo dileen magti ma helin and because of that mar kale dacwadii mar kale la furay hadda waa li baarooya aniga waxa iiga dhaadhiciyay marka xabsiga sababta u galay ina ahayd wiil inoo la dagaaltamay and at that time aniga qofkan waan jeclaay 100% jeclaay and I was literally blind waxaana aaminsanaay hadaladiisa waxaan hadda ka hor ii sheegay waana cafiyay ma ku haysanin wax weyn ilma ahayn at that time maadaama aaminsanaay qofkan inuu qalad gal tahay laakiin xumaano asiga leeyahay ina ahayn laakiinse waxa aniga lii sheegayay qofku aniga idaha inuu yahay iyo qofku ahaa isma lahayn wax kasto aniga ii sheegayay iyo waxa jirana isma lahayn guurka aniga maraayay waxyaalaha igu dhacay iyo waxyaalaha aniga u maleynay isma lahayn sababta xabsiga u galay
sababta saxda xabsiga u galay iyo sababta aniga ii sheegay inuu xabsi u galayna isma lahayn so asiga sababta u galay xabsiga waxay ahayd inuu xoogay gabar yar oo 14 sano jirto taasna aniga ma rabin inaan inta ka sheego ma rabin afaaraha asiga qaaska ah inaan inta ka sheego maadaama marka historigan sheegay aniga waxaa la tashtay waalidiintayda familygayga waxay tala ii siiyeen Afnaan adiga haddii aad dhehaysid waxyaalaha soo mara sheega yacni xora u leedahay qof ku dhihi kartaa ma lahan maxaa uga hadle waxa kusoo gaaray laakiinse ha ka hadlin dadkaas ha ka hadlin ceebyaashooda iyo waxay yihiinba iska dhaaf ha soo qaadanin taasna waa mida aniga raacayay familygayga qadarinayay haddana anigana waxaa rabay inaan u ekaado qof cashiradayda soo bartay inaan sii faafiyo laakiin qof uma soo galin storygan ma u sheegin inaan rabo qof kale inaan dhaawaco mase ciibiyaashiisu dhan banaanka soo sheego aniga waxyaalo fara badan aan qarinoyaa ma qarinin xabsigaas bas oo galay waxaa kaloo qarinaya waxyaalo aniga aaminsanahay ani ahaanteeda iga daran xabsigaas oo soo galay waxyaalo nafsadeeda ku sameynayay nafsadeeda ku dhimani gaartay aniga inta ka sheegaynin maanta qarinoyaa laakiin sababta u sheegaytan is because aniga soo ma saarin Soomaalida soo saartay Soomaalida way daba gashay sawiradooda la soo saaray sawiradooda waxay wareegayeen TikTok iyo social media oo dhan haddana waxay soo saareen xabsi inoo galay waxayna soo saareen sababta xabsiga u soo galay laakiin anigana su'aashan la weydiinoyaa su'aashaas oo adiga og nin naag xoogay mase gabareer xoogay sabab u sugaysay ba aniga ma ogeen laataan inuu gabar xoogay waxa ogaaday guurkayga dhamaadkiisa waxaan ii sheegtay xtiisa waxay dhahday Afnaan markuu ninkan xabsiga galayay xabsiga waxa u galay gabar yar oo soo xoogay laakiin aniga waa aamini waayay waxay kale igu dhahday yani xoogitaankan uu sameeyay ma ahayn markii koowaad oo sameeyay laakiin marar badan oo soo sameeyay gabadhaanna waa markii ugu koowaad lagu qabtaa aniga ma aaminsaneen because at that time waqtigaas aniga waxa u maleynayay cadawgayga inay ayada tahay so why nin naag xoogay mase caan ku inuu gabdho xoogo yaa waay naagta rabto yaa waay waa ka tagay maanta naag kala aroosay ma ani ka daba orda nin aan oga xumaantiisa laakiin ayada way ogeed waxay sheegaysaa sax ahayd aniga ma aaminsaneen waqtigan oo naagta xoogayay ayada xiriir la lahaayeen ayaga isla socdeen ayadana isku magaalo degan yihiin waciyaalka xaafada wax ka qarsamay ayada ma jirto laakiin ninkan way taqaan ayada ilaa hadda waxa la yaabanahay nin saan oo ka tagay why ugu daba orday so because of that aniga ma aaminin weligeyna ma ogeen inuu waxaan soo sameeyay ilaa marka oo guurkayga dhamaaday yani hadda dhow markii aan baranay narcissism sababta ugu weyn oo ugu shaksanahay inuu yahay malignant narcissism is because waxa la dhahaa malignant narcissism naagay xoogayaan waxay sameeyaan waa criminal waxyaalaha waaligay sameeyaan marka aqrinayda malignant narcissism markaas waa marka aniga fahmay 100% okay Afnaan ninkan naagu soo xoogay gabaras la xoogay sax ahayd laakiinse waxa aniga ila hadi fahmi la ahay oo yaabka iglo noqday man sin waa fahmi karaa waxay ahayd gabadha wuxuu xoogay 2014 bilawgeeda asigana waxa la xiray 2016 bilawgeeda yani April meeshas ay la xiray soo 2 sano dhan free ahay habeenka gabadhaas xoogayeen asii saaxiib ani waxay ugu dhahay ani saaxiibyashayda wiila la soo dagaalnay laakiinse the reality waxay ahayd asii saaxiibyashiisa gabar yar ay soo xoogeen habeenkaas ay xoogayeen waa la arkay booliiska gabadhii booliis ee wacday booliiska wuu qabtay laakiinse gabadha naftirkeeda waxay dhahday wiilkan kuma jiro the ex-husband waxay dhahday kana ima xoogin labadan qof ay xoogeen so because of that asiga waa la soo sii daayay lama xirin lagama shakinin maadaama qofkii dhan victimkii dhan dhahayo ninkan kuma jirin laakiinse booliiska waxay sameeyeen wixii oo dhan dhigeen hadda wiilasha kale xataa ma qabanin kulligood sii daayeen sanado ka bacdi 2 sano ka bacdi waxa xanaaqday gabadha hooyada dhashay gabadhana xoogaya waxay ahayd Swedish hooyadeeda xanaaqday dib dacwada u furtay waxay dhahday gabadheedu 3 wiil iskugu tageen soo xoogeen sidee awaalkooda loo marin la yahay sidee ayadana xaqeeda loo siin la yahay maadaama hooyadii dacwootay haddana mar labaad case-kii mar labaad dib loo furay marka la furay ka bacdina gabadhii waa la weydiiyay mar labaad waxa la lahay yaa ku jiray ayaga waxay dhahday marka koowaad waxay dhahday
wiilkan kuma jiro laakiin markii labaad waxay dhahday hadda ma xasuustay habeenkaas mar hore ahayd ani cabsi fara badan iyo maaragtay murugo fara badan ay haystay wax kama xasuusani kari and because ina dhahday ma xasuustay kulligood waa la wada baaray then waa la arkay and then waa la xiray and haddana Sweden markii maaragtay qofka marka la xiro xabsi qofka marka especially haddii xoogitaan tahay 2 sano iyo bar la xiraa aniga storygayga waa soo sheegay hadda ka hor waxaa dhahay qofkan waxaa sugaya 2 sano iyo bar laakiin 2 sano iyo bar asiga xabsi kuma jirin wuxuu xabsiga ku jira 1 sano iyo bilooyin 1 sano iyo 6 bil ma ku jiray mise 1 sano iyo 7 bil meelahaas oo ku jira xabsiga and then kabacdi waa soo baxay qofka marka la xiro obviously shaqo ma lahan guri ma lahan wax ma lahan soo aniga waxaa sugaya 1 sano iyo bar xirnay 1 sano iyo bar kale mise 1 sano iyo bilooyin kale ta sugaya shaqadiisa iyo gurigiisa inuu guriga qaato alaabta inuu dhigo arooska aniga ma ahan qof shaqaysanay waqtigaas arooska wixii oo dhan asiga qarashka qabay waqtigaasna markuu asiga dib u soo noqday freedomkiisa markuu helay markaasna waxaa soo noqonaya extiisa hore u kala tageen markaas ayaga waxay noqdeen saaxiibo ayadana wada ayada saaxiibo la ahaay jaceyl la jilaaye anigana waa ii wada jaceyl ila jilaaye labadeynana maskaxdu naga dhaqaaye labadeynana waa nagu ciyaaraaye anigana ma ogeen ayada way ogeed laakiin ayada waxay ogeed inuu aniga la socdo inuu aniga aroosaayo ilaa hadda taasna waa la yaabanahay waxyaalaha ay khatarta ku yihiin the malignant narcissism waxaa ka mid ah xumaanta intay sameeyaan ee haddana raad tirtirayaan habeenkaas gabadha obviously waxaas way ku sameeyeen laakiin I don't know wuxuu gabadha ku sameeyay somehow gabadha naftirkeeda wuxuu ka dhaadhiciyay inuu asiga ku jirin ee sheegto labada inay ku jireen laakiin asiga ku jirin idan malignant narcissism saas waaye xumaan intay sameeyaan ee haddana xumaanta adiga kugu soo gadinayaan maskaxda ka dhaqayaan waxay iska dhigayaan in ayaga dhaawac ku geysanin ayaga inay free ka yihiin xor ka yihiin qofkaas waa qof aad iyo aad u xun anigana I was nothing but his victim galay wiligiis dagaalkaas oo ii sheegay ma jirin gadaal waxyaalaha ka ogaanaya xataa waxaa ka mid ahay wiilkaas markuu i tusaayay wiilkaas ma ahayn mid lagu soo dhaawacay dagaal oo asiga galay wiilkaas wuxuu ahay boxer waxa dadka maaragtay boxerka ah soo game u ciyaarayay gamekaas lagu soo dilay dhaawacyada soo gaaray gameka ka soo gaareen oo takhtarka la galay laakiinse dhaawac weyn oo kooma la galo ma soo gaarin so wax kasto sheegay beena ahayd maanta marka aniga storygayga sheegayo dhibaatooyin fara badan iga soo gaari karo because waxaa la dhaahdaa narcissism adduunka waxay ugu neceb yihiin sharaftooda mise magacooda oo lagu dheeldheelayo mise wejigooda saxda banaanka la keenayo wax kastay sameynayaan sidii qofka isku day inuu qashifo ee u joojiyaan ee u baabi'iyaan so basically me telling this story it can cost my life noloshayda maanta ku waali karaa qofkaas wuxuu haystay 1 sano oo aniga i dilayay aniga kaw iga siinayay gacantiisa ku dhimani karay gacantayda ku dhimani karay laakiin ilaahay wuu iga soo badbaadiyay kuma dhimanin maanta waxaa aaminsanahay qofka ma dilo waxyaalo kale qofka waxaa dilo ilaahay waxaa dilo qofkan malkumoodka dilo waqtigu ilaahay kuu soo diray ma dhaafi daqiiqad kuma darsanaysid daqiiqadna kaama go'ayso so waxaa aaminsanahay shalay waqti fara badan oo haystay oo aniga igu dilo waa kasoo badbaaday dadka kale banaanka joogo aniga waxaa ahay qof kasoo badbaaday ma sax ah nina isoo qabay ilahay inuu jecel yahay ii sheegay inaan qofka adduunka ugu fiican ahay qofkaas wuxuu ahay cadowgayga saxda ah qofkaas wuxuu ahay qof habeen iyo maalin aniga i dilaayo qof wuxuu ahay habeen iyo maalin aniga hoos i geynayo i dhibaateynayo i xanuujinayo igu sameynayo waxyaalo bilaadan loo sameynin haddii aan qofkaas kasoo fakaday haddii aan qofkaas kasoo badbaaday dan maanta waxaa ogahay dadka banaanka the new haters dhibaato ii geysan karaan ma lahan waxyaalaha yaryarka ee sheegayaan ma ogiye anigan maanta waxa ahay qof aad iyo aad u adag waxa ahay qof marna cabsanaynin the narcissism waxyaalaha ka qaadayaan waxa ka mid ah waxay dilayaan cabsidaada waxa noqonaya qof aad iyo aad u adag waxa noqonaya qof geesi ah waxa noqonaya qof maaragtay wax ay ka cabsanaysa aad jirin because waxay ku marinayaan nolol horror ah ay ku soo gelinayaan wax kasta wiliga ka cabsanaysay the worst nightmare wiliga ka fikiri kartay waxyaalaha adduunka ugu xun you can imagine iyo waxyaalo ka daran ay kugu sameynayaan and because marka soo martid
wax kasto ku dili lahay marka ka soo badbaadid maxaa sameynay maxaa ii dhimano maanta maxaa kale ka cabsana aniga maxaa kale igu dhici kara maanta waxa ogahay iguma dhacayaan wax illa oo ilaah ii qore maanta waxa ogahay waqtigeyga ma aan hadda aniga qof kale qaladkiisa dusha layga saari lahay aniga qof kale ceebtiisa dusha layga saari lahay aniga waxa qof la soo qayaamay waxa qof meel kasta been looga soo sheegay in maanta waqtigan ma ahan waqtiga aniga ceebta dusha layga saari lahay waqtigan waxa soo gaarin waqtiga qofka ceebta mudan dusha laga saari lahay waqtigan waxa soo gaarin waqtiga qofka mudan qofka markasta bil aadanyasha dhaawaco halahaas qof oo soo dhaawacay halahaas gabdho nolosha ka soo haleeyay halahaas gabdho soo xumeeyay then xumaan kasta soo geysanayay wuu ka fakanayay maanta waxa la soo gaaray waqtigiisa oo bixin lahay wax kasta xumaan kasta oo soo geystay anigana ma aqbalay qofka isku dayay inuu aniga been dusha iga saaro qofka aniga waxyaala aniga lahayn dib igu soo celinaya qof ma maanta aqbalayso because maanta waqtiga waxa la soo gaaray justice will be served